qanciyay qaabka uu yahay iyo xaaladooda iyo sidoo kale waxyaalaha ay kala kulmeen yani magaalada Hargeysa inkastoo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي الغالية دي هانتي ملك سجوجا جوتان سورة وهذا اسكسود نقد ونكتن فضلا وحكا عصنا مركب كوباد نسوم برتادي تاي سبسكرايب نصار قبل الكتار سو نقطة دعوتها وقرية مقالة سوق لنا هالكن أرير تشوف سوق لا كلاوي تشيلسك قبل الكوا هايوها تشيلسك نوا هايوها الله وحويا لما مر لي ببا حتى سيد نكون تقانا سكستاتو إن مر لبعض المقالة سبحان كود هذا وحويا ما مصوماليات أما بس يوتيوبرات صوماليات عن أورانكرو وحويا مامو شرفي عيسى كل حمدان يوتيوب كطبعا وأن أنا هان كدم بيو أنا جو يعني موضوعية أي يدو كهذا شو عن يعني اسكو موضوع أنا كهذا وأنا ما يفافرت كي يعني وحياله أنا يخصيه أما وحياله اسكو ميدا كما هذا نقف كندو مركع لكن طبعا حتى نشنال كذا ما كنا كذا سبسكرايب وإيه هي سببت وإيه هنا وحوي موقف هناك تشعل حرو مركع تشعل مر والبنا dadka wanaaga oo nagu talisa wax weeyaan maama wada garanaysan shukri mazalla waxa ka dambeysay dad badan oo social media caan ka ah guusha ay gaareen iyada ka dambeysay dabcan mar iyo laba iyo saddex iyo afar ba maaha dad aad iyo tiro badan bay caan ka dhigtay iyadoo caan kama dhigin laakiin waxa kula talisay oo ay lahayd taladooda inay YouTube sameystaan oo ay bahda YouTube-ka ku soo biiraan dabcan si kasta ay ahaato maamo shukri mazalla ayaa waxay ka hadashay xaaladda kooxda Smadhaanto iyo yani YouTube riska reer Hargeysa qaabka iyaguna ay sharafta leh ugu mahad celisay aad iyo aad baan horto waan kaaga qabnaa baan ku leeyahay maamo sidoo kale maamada Soomaaliyeed waxay sheegtay YouTube barkasta meel kasta uu jooga inay dad walaala oo ay yihiin kamidaysan iyo wanaaga Soomaali jacaylka meel kasta qof YouTuber joogaba qofka kale ee favorite-kiisa ama yani isku mawduuca ka hadlan dadka kale uu uga dhow yahay xaqiiqatan anigoo waxba hadal idin ku daalin shalay adigu 4 cisho ka hor ama 3 cisho ka hor ama ayay muuqaal soo gelisay waxay ka hadlaysay kooxda Smadhaanto waxay wareysatay Big Bro muuqaalkaasi waxa muuqaal aad iyo aad horta dad badan u qanciyay dad badan oo YouTubers reer Nairobi oo maama ama gama kaga jirtay inay Hargeysa wali joogaan bay u haysteen YouTubers ka reer Nairobi horena muuqaalkaasi waan uga hadlay dad badan oo YouTuber Nairobi jooga waxay lahayn Smadhaanto waxay joogeen ama ay ku xunayeen in Hargeysa laba habeen ama 3 habeen qaabkaas u dhigeen laakiin ma sha Allah maama shukri mazalla ayaa waxa ku guuleysatay inay la hadasho la xiriidho oo ay iyagu muqdisho jooga kool ku soo qabatay tiraahdo bal xagga joogtaan warkiina caafimaadkiina nooga warama oo yani nooga faalooda ugu dambeyn Big Bro ayaa la hadashay especially wuxuu ka qanciyay qaabka uu yahay iyo xaaladooda iyo sidoo kale waxyaalaha ay kala kulmeen yani magaalada Hargeysa inkastoo oo si direct aan uga jawaabin su'aashaasi laakiin qaab yar oo dadban baa loo weydiiyay waxaan filayaa inay giftay inuu ka jawaabana ay ahayd su'aasha iyada si kastoo ahaato haddana maamo shukri ayaa dhaleecayn aad iyo tiro badan waxay ka soo gaadhay yani social media waxaan leeyahay qof experience waatay well experience waliba oo yani in badan ku soo jirtay social media especially barta YouTube-ka oo wax badan ay u duuban yihiin oo siyaasadaha YouTube-ka iyo habka hayaha aatika taakooyinka YouTube-ka wax badan ka faahsan marka wada ogsoontahay waxaan filayaa waxyaalahan inay jabin kulli dad badan oo kugu xiran ayaa yani aragtiyo kula soo wadaagay aragtiyahaasna iyadaaba inooga jawaabtay laakiin anu qodobada dhowrkan ka hadlaya waxa weeyaan horta mar walba waan ka hadlaa anigu waxaan uga hadlayaa inkastoo bahwadaaga oo yani saaxad ku wada jirta dadka way iskaga dhow yihiin xaqiiqatan qofka YouTube-ka inkastoo dadku ay yiraahdaan hadduu qofku YouTube yeesho oo qofka public figure noqdo ama celebrity uu noqdo qofka kale walaalkiiya ma jecla inuu social media ku soo biiro ama se qofka kale wis challenge gareeyaan laakiin dabcan dad saasna way jiraan dad ka duwan oo mawduuc ka duwan aaminsan way jiraan anigu waxaan aaminsanahay qof kasta oo yani YouTube inuu ka kale iiga dhow yahay inuu fanaanka iiga dhow yahay inuu musicianka iiga dhow yahay inuu ninka abwaanka iiga dhow yahay sababtoo ah bahwadaag baan nahay bahdii suugaanta ama bahdii media ayaan meel ka wada joognaa position ka wada ciyaarna hadduu isagu 10 ka ciyaaraan uu 9 ka ciyaaraan yani sidaasna isku xinaa soo meela garan marka dadka yani is challenge gareynaya mar walbana ayda iyo aflagaadooyinka kala gedisan ee baahsan social media isku marinayo waxaan leeyahay ka tanaasula mar walba hadafkiina himiladiina waa inuu ahaada inaad street line ahaataan oo aanu qofna eed ka taban qofna aanu cay ka taban qofna aanu xumaan ka taban oo habeen adiga oo uurkaagu saafiyina yani mooyee adiga uurka wax ku haya inaanad seexan isku day sababtoo mar walba oo wanaaga iyo yani aad ka taliso maslaxada dadka
oo aad dadka kala wanaaguga jeclaato oo markastoo adigna wanaagaaga iyo guushaada aad gaadho laakiin haddii aan kula koko oon kula madho oo aan daazun lugta ku hayo wada ma dhaqaaqasid Soomaalida waxa ku mahmaada qofka dadka qaar yani markuu qofku xun yahay oo qofku mar walba wanaag ku sameeyo adna aad xumaan iyo naxli keento ay Soomaalida waxa ku mahmaada intaan kafantaada tolayo ayda adna kabta intaan kabtaada tolayaa aan idhaahday ayda adina kafantaada tolasa oo dhiganta yani intaan wanaagaaga iyo guushaadii waxa ka shaqeynay ayda adina mar walba arax jabinteeda iyo oofgoonteeda iyo oo fureenkayga iyo ridada iyo xumaanta iyo waxa aad la meegantay aad ii wada laakiin waxaan leeyahay mar walba yani wanaag social media ku jooga waxaad aaminsan tahay ama alternatives-ka doorashooyinka aad haysato inaad ka hadasho ka hadal laakiin meel walba inaad isku qaato inaad reaction isku qaato inaad challenge isku qaato inaad warbixin isku qaato inaad waxaas oo dhan isku qaato waa shay laga qurux badan yani mar walbana social media waxa ka jira challenge iyo inay dadku xumaan iyo waxyaalo aan munaasib ahayn social media keenan waxyaalahan ka tanaasula mar walbana guusha mar walbana wanaaga iyo dadka idinku xidhan farxadooda ka taliya dad badan wax jira diaspora ama qurba jooga oo stress iyo buuq iyo waxyaalo noocaas shaqooyinka ay joogan kala soo kulmay ama yani dad English ku wada hadlayo si English ugu wada hadlayeen iyaguna la qabatay meel la adabtir gareeyay markaa maybe dadkaas inay adiga suugaan ku soo doontaan inay adiga wax ka faa'iidaan inay ku soo doontaan inay xitaa luqadda ama lahjada aad ku hadlayso ay doonayaan inay bartaan dadkana qaab yar oo waafi oo well experience inaad ugu waranto oo tiraahdo waa sidan iyo waa sidan iyagu lagama yaababa inay mowduucan xiiseynayaan waxa laga yaabaa kaliya luqadda aad ku hadlayso inay iyagu xiiseynayaan dadka diaspora qurba joogtay intaas oo dalka ka maqnaa Soomaaliya garan idinkana dadka idinku faa'iideynaya dhanka wanaagana ugu faa'iideynaya luqadina iska dhisa oo mar walba luqadina ama Soomaaligan Ilaahay idin siiyay aad ku dhalateen isku dayeen develop gareysan oo aad horumarisaan oo aad yani naxwihiisa iyo grammarkiisa mar walba aad xaq hoos ka dhistaan anigoo ma jeclaan muuqaalka yani ku dheeraado waxaan rabaa inaan inta ku saafmeero war asxaabtada qaaliga waxaan leeyahay aad iyo aad mahadsantiin sharaf iyo ciise karaamiyo waxaan idin hayaa respect aad iyo aad ballaaran waxaan kaga tagayaa walaalkii wartayada oo idin فضلا حتى كويس بتين كنا سبسكرايب نصير مقارنة ولا جرية شير جرية لو بدك أصحابتنا فكر كاجي أرتياس أنا الحكي وصلنا نقول له بدك تو وين يوم مقالك فين كل ما حد كده كيان أمانة الله